xilli aysan horay uga jirin magaalada Cadaakibir ee gobolka Galgaduud isbitaal iskool xarun degmo iyo sidoo kale saldhig booliis ayaa mashaariic lagu dhisayo goobahaasi waxaa si wada jira magaalada uga bilaabay jaaliyada Soomaaliyeed ee Xayaada Foundation iyo dadka deegaanka xubno ka socday Xayaada Foundation iyo qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa booqasho waxay ku tageen goobaha mashaariicdan ay ka socoto ee magaalada Cadaakibir waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaakibir محمد علي حيس يا فرحان محمد دوري وكمد جاليدا Soomaaliyeed ee Xayaada Foundation ayaa sheegay inay ka jaaliyada ahaan magaalada Cadaakibir ka wadaan dhismayaasha goobaha danta guud isla markaasina ay sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ay ka wadayaan Cadaakibir waxaan ku dari doonaa halkan 3 qol iyo 3 musqulood hadii Ilaahay idmo iyo 2 musqulood marba intii uu noo qaado space-ka u harsan marka arintaas ayada ayaan samayn doonaa hadii Ilaahay idmo dayactirna waa ku samayn doonaa qaybtan dhisan marka waxaan samayn doonaa hadii Ilaahay idmo corridor waa u mahad celinaynaa walaalaha jaaliyadaha oo ka jawaabay baaqayagii ahaa in loo soo gurmado deegaankan qaasatan qaybta isbitaalka waxa lacagta ugu horeysay oo isbitaalkan la rabo in lagu bilaabo bixiyay oo nasiibka iskoolkan nasiibka ugu horeeyay yeeshay dhalinyarada degan magaalo kamida dalka Jarmalka waxaana wakiil u ahaa in la yiraahdo Mahad Axmed Cali oo lacagtaasna soo gaarsiiyay ujeedada markaan magacooda xusnay waxa weeye inay ogaadaan iskoolka ay yiraahdeen noo bilaaba dhalinyarada reecada barwaaqo anaga u dhameystirayna waa u bilownay insha Allah taala Muna Maxamed Diiriyo oo kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ayaa dadka Cadaakibir waxay ugu baaqday inay wax walba la yimaadaan bilowgooda si looga caawiyo dhameystirkooda haddaadan idinka isku duubneen oo aadan wax rabin cid wax idin qabanaysaa ma jirto waa in idinka timaadaa waa in waxa haysatiin aan wax idinku darnaa maxaa yeelay meel eber ah wax ma ka bilaabi karno xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi in la yare oo kamid ah baarlamaanka Galmudug ayaa uga mahad celiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee Xayaada Foundation dhismaha danta guud ay ka bilaabeen magaalada Cadaakibir way kamid yihiin ugaas farxaan iyo xiish ay kamid yihiin iyo dhamaantii ka qayb qaadatay waxaan isleenahay meeshan way mudnayd in laga dhiso xarun waxbarasho iyo xarumo kale oo muhiim ah iyaguna sida caafimaadka kale cid kasta oo ka soo qayb qaadata oo dalka iyo dibadda joogtana waa uga mahad celinaynaa qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dhismaha danta guud ay ka bilaabeen deegaankooda jaaliyada Soomaaliyeed ee Xayaada Foundation iyaguna uga mahad celiyay isgarabtaag ay u muujiyaan dadka reer Cadaakibir Ilaahay ma mahad u sugan tahay laakiin waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalaheena oo na soo booqday oo in dheer qaarada badan u soo jiiray sida ay wax noogu qaban lahaayeen hadda hadii marka walaalaheena dhexda ay ugu xiran tahay inay wax noo qabtaan annaguna aan wixii wax ka bilaawno wixii noo bilaaban yihiin waa alxamdulillah mahad Ilaahay uga mahad celinaynaa ma ahan markii ugu horeysay ee jaaliyada Soomaaliyeed ee Xayaada Foundation ay mashaariic horumarineed ka fuliyaan deegaanada iyo degmooyinka Galmudug si ay u horumariyaan deegaanada isla markaana ay u caawiyaan dadka dhibaataysan